وعن wanaagsan daawadayaal idin lahantiinba ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo aad saacadaha oo kale aad ka daawataan TV-ga Som TV Soomaaliya. barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Daadir Carab. waa madax Soomaaliyeed oo midba midka kala dacwo ka yahay masiirka iyo ay ka talinta dalka iyo dadka ay madaxda u yihiin waa la leeyahay qabkoodii aan kor u qaadno qabka iyo sharafka Soomaaliyeed ee uu madaxweyne Farmaajo sheegto in uu soo celiyay ma waxa uu ku miisaamaa xaqiiqada jira mise qof jecleysi iyo dareen qabyaaladeysan. Soomaaliya halkee ayay maanta taagan tahay 4 sano kadib? jawaabta su'aashan iyo taariikhda oo aan dib u raacno ayaan halbeeg ka dhiganaynaa gudaha iyo dibadda ayaan markaasi u kala qaadi doonaa. Soomaaliya oo ku meel gaarnimada ka baxday 2012 ayaa masraxiyada dunida dib ugu soo laabatay. madaxda qarankeena waxay ahaayeen kuwo wax ka fariista xafiisyada laga go'aamiyo siyaasadaha caalamka. 4 sano kadib markuu madaxweyne Farmaajo xilka qabtay, siyaasadeena arrimaha dibadda waxay noqotay White House-ka to xafiiska Abiy Ahmed. waxaan ku soo aroornay Eritrea iyo Ethiopia. waa natiijada siyaasad qalqalsan ee uu madaxweynaha dalka ku hagayay 4 sano ee la soo dhaafay. 2016 waxaa Muqdisho marti ku ahaa madaxda Afrika oo 20 sano kadib uga qayb galayay shirka madaxda IGAD. shirkaas goobta uu ka dhacay ma ahayn xerada Xalane ee waxa ay ahayd gudaha caasimadda ee Muqdisho. caalamada Afrika ee uu ka dhex muuqda keena midabka san ayaa wadooyinka Muqdisho ka muuqanayay. Uhuru Kenyatta oo airportka ku soo dhaweeyay wasiirka gaadiidka xilligaas ayaa ka mid ahaa madaxda timid. madaxweynaha xilligaas Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta ayaa lagu heshiisinayay magaalada Muqdisho. Uhuru Kenyatta wuxuu xal u raadinayay ganacsiga qaadka iyo dacwadda badda, balse 6 maalmood kadib September 19 isla sanadkaas waxaa maxkamadda caalamiga ah ee Hague ka bilowday dhageysiga dacwadda badda. 4 sano kadib garoonka Aadan Cadde waxa uu qaabilaya ilaalada ciidamada dowlad goboleedyada, waxaana xerada Xalane lagu heshiisinayaa madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday. Farmaajo markii uu gabay kaalintiisa hogaamineed iyo in Soomaaliya uu dib u heshiisiin ka dhex abuuro, waxa galay booskaas ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay James Swan. waxa uu tagay bil gudaheed Baydhabo, Dhuusamareeb, Garowe, Jowhar iyo Kismaayo. waxa uuna gabagabadii fariinta beesha lixaad u geeyay 3 January fila Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo oo u muuqda inuu qaatay waxa loo sheegay ayaa saacado kadib soo saaray qoraal oo ugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada in ay ku kulmaan Dhuusamareeb intii u dhaceysay September 2020 ilaa March 2021 sanadkan. tiradii ugu badneed abad fariimo qaar ay u muuqdaan inay amar yihiin ayaa waxa daabacay safiiro oo ay horkacayaan Yamamoto iyo James Swan. fariimahan ayaa ku wajahnaa madaxda Soomaalida ee uu Farmaajo hormuudka u yahay. waxaa la idinku boorinayaa waqti baa idinku socda, waa inaad isu timaadaan Soomaalidana u turtaan. waa qaar ka mid ah ereyada safiirada shisheeye Twitterka iyo Facebooka ku daawaceen ayagoo la hadlaya Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada. fariimahan ay mar walba Twitterka ay ku soo daabacaan safiirada fadhiya Xalane ayaa madaxweynuhu ka falceliya marka uu diido baaqyada bulshada iyo siyaasiyiinta kaga yimaada. siyaasadda madaxweyne Farmaajo ee ku saleysneed nabadoonnimada waxaa laga dareemay Ethiopia iyo Eritrea, balse gudaha waxa uu ahaa matanaasule ka gudbi waayay gobolka Gedo. balse Soomaaliya waxay kaga gudbi kartaa baahida shisheeyaha sokeeyaha inay heshiiyaan oo ay isogolaadaan. arrimaha gudaha oo xumaatay ayaa keento faragelinta teeda qalloocan inay noo timaado. mas'uuliyadda madaxda dalka ay ku dhacay inay dalka isku hayso, dadka siyaasadda ku jira isku hayso,